war-saxaafadeedkan aan halkan ka jeedinaya maanta wuxuu ku soo beegmay 3 sano iyo 3 bilood kadib doorashadii madaxweyne xasan sheekh wuxuuna caawa ama galabta guudmar idinkugu samayn doonaa xaaladda dalka isgoyska maanta aan taagannahay gaar ahaan geedi socodka dowlad dhiska iyo dowladnimada Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu doortay laguna dhaariyay dastuur heshiis lagu yahay oo ku qotoma hanaan federaal ah nidaam baarlamaani ah iyo doorasho la isla ogol yahay oo 4 sanaba dalka marka dhacda waxa ayaan daro ah inay Soomaaliya maanta ku jirto firaaq dastuuri ah maadaama uu madaxweynuhu isku dayay inuu cutubyo kamid ah dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 uu bedelo si baalmarsan hanaanka wax ka bedelka dastuurka nasiib daro dastuurkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed isku hayay maanta waa kala dhantaalan yahay dalkana waxaa nasiib daro dastuur oo ah rabitaanka madaxweyne xasan sheekh 35 sano ka hor waxaa dowladnimadii Soomaaliya galaaftay hogaamiye Soomaaliyeed oo laalay dastuurkii heshiiska lagu ahaa xukunkana isku dhajiyay 8 bilood iyo 26 maalmood ayaa galabta ka dhiman madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh waxaana iyadoo ay madaxweynaha u hartay muddadaas kooban aan weli heshiis laga ahayn doorashada heer federaal ee soo socota taas oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadaba u horseedi karta khilaaf hor leh iyo hubanti la'aan siyaasadeed waxaa sidoo kale magaalada Muqdisho ka socda diiwaangelin doorasho aan heshiis lagu ahayn kuna qotonta qasab qori iyo qafaal waxaa maanta khatar ku jira midnimada dalka waxaa go'ay xiriirkii ka dhaxeeyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ay colaadisay dowladda madaxweyne xasan sheekh taas oo nasiib daro horseeday kala irdhow siyaasadeed khilaaf hor leh halisna ku ah dalka iyo geedi socodka dowladnimada gaar ahaan isku haynta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaa qaybo kamid ah gobolada dalka maanta ka aloosan xasarado iyo colaado ay ka wado dowladda madaxweyne xasan sheekh waxaana ayaan daro ah in askar Soomaaliyeed oo loo carbiyay ilaalinta nabadgelyada iyo la dagaalanka khawaarijta ay iyagu dhexdooda maanta dagaalamayaan dhufaysna ay isugu jiraan gaar ahaan gobolka Gedo waxaa maanta sidoo kale xaalad adag ku jira ganacsiyada iyo dhaqaalaha dalka waxaa haawanaya suuqyada ganacsiga waxaana dalka dibaddiisa maalgashiyo ku sameynaya ganacsatada Soomaaliyeed oo hantidooda kala cararaya duruufaha qalafsan ee dowladda hadda jirta dalka ka abuurtay waxaa xusid mudan in nidaamka dowladda hadda jira oo uu hormuud ka yahay madaxweyne xasan sheekh in nidaamka ay dalka ku hogaaminayaan awgeed inay dadkii Soomaaliyeed ka sii hayaamayaan dalka ay u guurayaan dalal shisheeye halka ay dhalinyaradii Soomaaliyeed badaha ku la'anayaan iyagoo raadinaya nolol iyo rajo ka duwan tan caawa ka jirta magaalada Muqdisho madaxweyne xasan sheekh waxaa xilka lagu aaminay iyadoo degmo waax iyo xaafad kasta oo ka tirsan caasimadda dalka ay dowladdu ku leedahay dhul dan guud ah waxaa musiibo qaran ah
in madaxweynaha dalku uu maanta si suuq madow ah ku iibinayo dhulkii danta guud qoray caaradiisna ku barakicinaya shacabkii danyarta ahaa ee ku noolaa dhulalkaas waxaana xusid mudan in dhulkii danta guud lagu sii ballaarinayo dhul ay leeyihiin dad shacab ah awoodda dowladnimadana lagu boobo dhul ay dadweynaha Soomaaliyeed u haystaan lahaansho sharci ah dhinaca beesha caalamka dowladda Soomaaliyeed waxay ku tiirsan tahay kab iyo kaalmo caalami ah miisaaniyadda dowladda waxaa 67% bixiya deeq bixiyaasha caalamka waxaana ku noolnahay duni aan go'aanada loo gaarin sidii loo gaari jiray isbeddello waaweyn oo mudan in si xilkasnimo leh loola falgalana waxay ka socdaan caalamka iyo gobolka aan ku noolnahay waxaa sidaas daraaddeed ilaa hadda la baadi goobayaa quusna laga taagan yahay dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidamada nabad ilaalinta ee loo qoondeeyey Soomaaliya maadaama uu musuqmaasuq iyo habdhaqanka dowladda hadda jirta ee hogaamiye madaxweyne xasan sheekh ay horseedeen inay dunidu ka sii aamin baxayaan dowladnimada Soomaaliya waxaa sidoo kale xusid mudan in mashaariicdii horumarineed ee hay'adaha caalamiga ah u qoondeeyeen Soomaaliya ay badankood fulintoodii fashilmeen maadaama aanay dowladdu lahayn karti iyo hufnaan ay ku fuliso taasoo horseeday in lacag $5 bilyan ah ku dhow ay dib ugu noqoto deeq bixiyaasha caalamiga ah walaalayaal dalkeenna iyo dadkeenna laxjeclo badan ayaa naga haysa waana damqinaysaa lamana aqbali karo inaan maalin walba aragno hooyo Soomaaliyeed oo danyar ah oo madaxweyne xasan sheekh ka barakicinayo dhulkii ay ku nooleed waana damqinaysaa lamana aqbali karo inaan maalin walba aragno dhulkii danta guud oo lagu xaraashayo suuqa madow lagana saarayo diiwaanka hantida qaranka sidoo kalena la boobayo dhul ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo loo xoog sheeganayo loona adeegsanayo awood dowladeed waana damqinaysaa lamana aqbali karo in argagixisadu la wareegto dhul aan ku weynay halyeeye qaran halka ay dowladduna ku mashquulsan tahay in dhulkii danta guud ay kala wareegto shacab tabaalaysan oo ay shacabkaas ugu badan yihiin qoysaska ciidamada dalka difaacaya habeen iyo maalin waa taageersannahay shaqada ay wadaan ciidamadu waa ku kalsoonnahay wanaagooda iyo shaqada ay hayaan waana ku garag taagannahay ummadda Soomaaliyeedna haddii Ilaahay yiraahdo way ka guuleysan doontaa cadowga khawaarijta waana damqinaysaa lamana aqbali karo inaan aragno askartii dowladda ee loo carbiyey ilaalinta nabadgelyada shacabka iyo la dagaalanka khawaarijta oo loo adeegsanayo barakicinta danyarta aynoo furumo uga jiraan xaafadaha iyo suuqyada caasimadda dalka waana damqinaysaa lamana aqbali karo inaan aragno askartii qaranka oo ku dagaalamaysa iskuna leynaysa deegaano nabad ah si ay madaxda dowladdu ugu gaarto dana gaar ah iyo damac siyaasadeed waana damqinaysaa lamana aqbali karo inaan aragno ganacsatadii dalka oo hantidooda kala hayaamaysa Soomaaliya qoysas badanna ay ka haajirayaan dalka dhalinyaradii Soomaaliyeedna iyagoo quus ah ay naftooda ku biimeynayaan badaha waana damqinaysaa lamana aqbali karo inaan aragno askartii dowladda oo suuqyada xaafadaha iyo wadooyinka ka qafaalaysa shacabka si ay qasab iyo qoray caaradii dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho
ugu diiwaan geliyaan waana damqinaysaa lamana aqbali karo in la kala dhantaalo midnimada dalka lana abuuro tafaraaruq iyo khilaaf hor leh oo lagu kala geynayo ummadda Soomaaliyeed iyo wadajirkeeda waana damqinaysaa lamana aqbali karo in dhaqankii dowladnimada Soomaaliyeed loo rogo ya xoog leh dowladana ku xiran dowladnimaduna ay si xuub siibanayso musuqmaasuq xarkaha goostay ugu dambeyntii waxaan leeyahay madaxweynaha wixii aan annaga iyo adiga inagoo halkan aan taaganahay hadda anigu taaganahay wadajir wada taagan aan dalkan horay ugu qaadi weynay kana diidnay madaxweynihii adiga ka horeeyay adigana laga yeeli maayo ee u tur dalka dhulka dhig talada si dalka Soomaaliyeed iyo dadkaba loo samata bixiyo